dhammaan raggaas qaybna waxay iska soo dhigeen tabliiq oo waxay soo mareen Hargeysa ilaa Boosaaso ma imaan karaan gaalkacyana ma imaan karaan Garowe ma imaan karaan dooniyana ma soo qaadi karaan ciidamada BNPF meel walba jooga badde nimankan ajaanibta ah dhammaantood waxay ka soo degeen dhammaantood waxay soo mareen maamulka Soomaaliland waana ayaan darada dhacday in maanta duulaan lagu yahay dhulkii Soomaaliyeed oo ajaanib duulaan ku tahay in maamuladan lagu haysto oo midba midka kale cadawga u yahay in uu fududeeyo weerarada وحقيقة وي كما دبعان وي تلفزيون كمامولك Soomaaliland inta tagtaan oo baartaan raadiya nimankaas ajaanibta iyagoo la dalxiisayaal baanahay ayaa waxa laga duubay Berbera waxa lagu duubay Hargeysa dhamaantood baabuur baa lagu soo qaadaa waxay tagaan Ceerigaabo Buurleyda Calmadow iyo Calmiskaad ee Sanaag bay saa u siimaraan hadhow bay halkaas tagaan qodobkaas waa iga haysataa qodobkaas waad iga haysataan waxa Puntland dagaalka kula jiro waa maamulka Soomaaliland waxa Puntland raba in dekada Boosaaso laga kala cararo oo Boosaaso oo indhaha Soomaaliyeed ah la banado oo lagu soo xirmo ma taqaanay Berbera waa maamulka Soomaaliland waxa fududeynayo ajaanibta ee argagixisada ma taqaanay galbeedka Afrika ka dhigayo dalxiisayaasha ee fududeynayo inay weerarada ka geystaan gobolka Bari oo ay buuraha inoo galaan waa maamulka Soomaaliland cadaymahoodana waa haysataan nimankii hadda isa soo dhiibay ee daacishta ahaa nimankii hadda isa soo dhiibay ee daacishta ahaa waxa kamid ah ninkan odayga ah Ilaahay baa idin ku dhaarshay ninkan odayga ah baa kamid ah ninkaasa kamid ah ninkaasa kamid ah ninkan waraysigiisa wuxuu yaalaa YouTube waxa waraystay oo soo qabtay ciidanka BNB ciidanka BSF tabaa qabtay 2 bilood oo waraysigiisu yaalaa ninkaas Zanzibar dadka Zanzibaariyiinta ah waxa loogu sheekeeyay inuu ka soo shaqeysan doono Sacuudiga adigu si kastaba ha ku imaadee dhankaas iyo mooyaale ayuu yimaaday oo Kenya xuduudka Kenya iyo Ethiopia halkaas uu ka soo tagay waxa la soo galiyay wajaale diyaarada waxa looga soo qaaday ma taqaanay halkaas Hargeysa imaaday waa ka soo gudbay sidii loo soo waday waxa la geeyay Buurleyda fog ee Puntland baa la geeyay markii la yiri war shaqadii aan rabnay meedayna waxa la yiri waxa difaacaysan diinta Islaamka baa difaacaysa codkiisi waa duuban YouTube ku jira raadiye baara ciidanka BSF baa waraystay wuxuu soo maray maamulka Soomaaliland buu soo maray Hargeysa soo maray Ceerigaabo soo maray kadibna halkaas buuraha ka galay markii dambana wuu ciidan noloshiiba inta nagu adkaatay oo aan adkeysan weynay intaas oo dagaal markaan galnay oo la galnay shabaab iyo daacish baa waxay isku dagaalami jireen buuraha oo aanu dagaalkii shabaab kaga adkaanay daacish baa adkaatay iyo shabaab ma ogtay markii dambe inta naf u yaabnay baan waxaan war noloshan kuma jiri karnay maxaan sameynaa aniga mid kale oo saaxiibkay inta soo caranay baan waxay isku dhibnay ciidamada difaaca Puntland Boosaaso lagu wareystay wuxuu leeyahay ilmaade Rayaalow hana lagu xiro wadanka yagii hana lagu xiro Tanzania ka soo jeeda ninkaas safaarada Tanzania hana lagu xiro leeyahay sir badan uu fashilay meelaha aan soo marnay ajaanibta badanna ay soo maraan waa waxa weey waa maamulka Soomaaliland xaqiiqada dhabta amarka halkaas marka waad haysataa cadayntaas waad haysataa waa qodobka koowaad oo ah qaabka argagixisadan ay ku soo gaaraan buuraha iyo cidda u fududayso ajaanibtan ciidanka saldhigyada ciidamada Puntland isku qarxinayso cidda taakulaysa oo taageerada siiso oo soo gudbiso inay maamulka Soomaaliland tahay waa in maamulka dawladda Puntland ay la xisaabtanto Soomaaliland waa inay la xisaabtanto waa inaan looga harin waa in lagu dacweeyo hay'adaha caalamiga ah waa in lagu dacweeyo waa in la sheego in cidda amniga geeska Afrika iyo bariga Afrikaba halista ku ah uu yahay maamulkaas marna ay weerarayaan xuduudaha dawlad deegaanka Soomaalida oo dacwaalay weerar ku qaadayaan marna ay Puntland oo amni ah oo kala dambeyn leh ay buuraha u soo dirayaan argagixiso oo ay leeyihiin waa dalxiisayaal caalami ah ay leeyihiin waa in lagu dacweeyo hay'adaha caalamiga ah iyo nimankan ma taqaanay dhaha argagixisan ula dagaalamayna hadii argagixisa la dagaalankooda uu dhab yahay
وإن لقود دعوية أداها وحسيو سوماليلاند وأرجع كالكال waxaanu ogeynaa buwaanagaye iyo gamaadiid oo reer burco iyo reer berbere ah iyo hargeysa in loo diray jirid nimankii shuuta uu wareysanayay oo mataqaanaaye uu ku qabtay balad weyne lagu qabtay dhammaantood waxay fasax ugu socdaan ceerigaab iyo burco iyo hargeysa waxayna joogeen jirib jannada hargeysa laga waayay ee jirib iyo buuraha puntland taalo walaalayaal maxay tahay waa in su'aal la weydiiyo magaalada ceerigaabana waxay rug u ahayd argagixisada caalamiga ah mataqaanaaye tunisiyan tale oo maroo kale guryaha xataa uga kiraysnaa halkaas marka inta guryahaasay degaan naagahooday wataan buurahaas loo gudbiya oo xaqiiqo kama biyo dhibcaad qodobkaas halkaasaan uga tagay qodobka labaad warqadan ayaan iyadan rabay inaan dul istaago warqadan waxaa laga soo saaray jeebabka nimankii weerarka ku soo qaaday ciidamada difaaca Puntland ee ku sugnaa saldhiggii Dharjaale warqadan af Pakistan baa ku qornaa sidoo kale af Carabi ayadoo turjuman baa ku qornaa nin walba jeebkiisa ugu jirtay warqadu nin walba oo Daacish ah oo isqarxiyay ama dhintay jeebkiisa ku jirtay loogada halkaas kaga muuqata waa Salaam Banki cidda la intaana u gudbin waxaan rabaa inaan dul istaago warqadan wixii ku qornaa warqadan waxaa ku qornaa anoo yahay halkaanan ka aqrinayaa halkaasna way ku qoran tahay warqadan waxaa ku qornaa anigoo ah Abu Cubayda waxaanu la dagaalamaynaa murtadiinta Puntland waxaan ka tirsanahay qaybta 75aad ee ciidanka wilaayada islaamka ah dhammaanteen waxaa inoo ballan ah inaynaan ku laaban halkii aanu ka imaanay ee dhammaantood aynu jannada aynu soo doonanay aynu ka dhabayno Abu Cubayda waa walaal islaam ah oo raba oo ka imaaday Morocco waxaana diyaar u ahay difaaca diinta islaamka warqadaas weeye waxay ku qoran tahay af Pakistani waxayna ku qoran tahay af mataqaanay Carabi Salaam Banki warqadeeda buug noodkii Salaam Banki weeye Abu Cubaydow diinta aad ka weyda Falastiin oo Yahuudi la dagaalamayso ee buuraleyda Puntland tuugada joogto gaalada joogta ay tahay ishaq iyo murtadiinta ciidanka Puntland ee buuraleyda joogay ishaq gaal baa tahay shahiidna matid tuug dhalay oo aan islaam ahayn baa tahay diintan orod walaalahan Falastiin ee la dagaalamayo aad diintan wiilasha Puntland ee sunniga oo shantooda salaadood tukada oo soo xajiyo oo aan cidna duulaan ku ahayn kugu kalaftay inaad buuraha soo gashay diishay islaamna matid gaal alla ka furtay baana tahay annagaana kule wiilashii Puntland baa shahiiday adigu waxaa tahay ehlun naar saacadaana waxaan kitaab jaamaca ku mari karaa in naartii aan kabaha lagaaga bixin ciidamadii Puntland ay janno ku jiraan baan ku dhaaran karaa adiguna gaal alla ka furtay oo tuug ah horta warqadan waxaasaa ku qornay baraalka warqada waxaa ku dhegan loogadii Salaam Banki waa bangi caalami ah oo Puntland isticmaasho waliba shacabweynaha Puntland ay isticmaalaan Salaam Banki yaa leh Salaam Banki waxaa iskale Ismaaciil Cumar Geelle waad Google garayn kartaa Ismaaciil Cumar Geelle leh bangiga Salaam Banki Ismaaciil Cumar Geelle iskale وحقيقة دبت أوي وانا جوجل جرين كرتا كلجي تليها جبوتي با إسكله هل كان أسعنا مركب حيتها داعش لعجها بادة أو أي شعب كبوتلان كقادان أو شعب كقبل كبري أي كقادان وحي مرسيستان بنقية كلا دوان أو كم دي بنقي جاس معلن إحداثا قبر بالوريستي قبر reer bari ah oo gudaar u soo gadi jirtay Daacish lambarada la baaray ilaa 4 lambar iyadoo ninkeedu waxa mari jiray lacag kor u dhaafaysa 120,000 oo dollarka Mareykanka markaas askartii waxay leedahay oo waxa soo lacag haday bangigaaga dhex marayaan walaalay annaga maxay isugu kaysoo dhibi weyday markaas waxay tiri waan cabsaday horta bangiyada lacaguhu ay u maraan caalamiga ah bangiga Salaam Banki waa kamid jeebabkoodana laga soo saaray loogadii Salaam Bankina waa taasa
muuqaalkiina waxay ku jirtaa wiilka SSDF ku qoratay page-kiisa gala cidda u fududaysay kama hadlayno sidoo ku gaaray kama hadlayno laakiin xaqiiqada waxay tahay in bangiga Salaam Bank Puntland ay la xisaabtanto lacagaha marayo la ogaado lacagaha marayo la baaro argagixisadan lacagaha waxay u maraan bangigaas iyo bangiyo kale waa in bangigaas la xisaabtamo nin kale ee Ismaaciil Cumar Geelana xisaab dhab ah la galo Ismaaciil Cumar Geelana marka maxay tahay isaga danta ugu jirto isaga bangigan isaga leh da ganacsigiisa u kala soconayo waxa la qarxinayo waxba kama galin waxa ma taqaanay la leeyahay waxba kama galin wiilashiisa ciidankiisu waxay nabad ilaalin u joogan ma taqaanay ishaag beledweyne u joogan ciidamada Jabuutiyana u joogo isaga mashruuc bay Soomaaliya u tahay waa mashruuc dhaqaale u tahay isaga marka wixii la qarxinayo cidda isticmaalaysa waxba kama galin waxa la qarxinayo iyo waxa la dilay isaga waxba kama galin Ismaaciil Cumar Geelana waa cadowga Soomaaliya cadow ku yahay Soomaaliya marka laga soo tagana dadka reer Puntland isir ahaan dadkan daaroodka ah cadow buu arkaa Ismaaciil Cumar una la dagaalamaya waa cadahay taas madaxweyne Farmaajo la dagaalamay oo Cabdullaahi Yuusuf la dagaalamay oo intii madaxweynayaasha daaroodka ah ee filo Soomaaliya soo xukumay dagaal buu kula jiray isir ahaan dadkan daaroodka ah uu la dagaalamaya nacayb ahaan Soomaali nacayb uu qabaa ogow Ismaaciil Cumar Geelana ninkii xilka kala wareegay Xasan Guuleed Abtidoon oo isaga adeerkiis ah cidii xoreysay wuxuu ahaa Maxamed Siyaad Barru ah Jabuuti cidii dagaalka la gashay 77kii ee xoreysay ee Jabuuti xornimadeeda keentay Allah u naxariisto Maxamed Siyaad Barru nin daarood Ismaaciil uu ahaa anagu ma garayna marka Ismaaciil Cumar Geelana meesha daaroodkan uu nicib yahay halka daarood nacaybka uu ka keenay anagu ma garan karo cadow buu warka Farmaajo cidii mucaaraday ee Saadiq John xataa gabadhiisii uu ku abaalmariyay isagu ah ee dagaalka dhabta ah la galay markii si walbaba nimanka Ciise way ka hadleen waxay dhaheen Ismaaciil Cumar Geelana xataa Ciise ma ahan way waxay dhaheen ninkan ma ahan Ciise saxda ah dhankaas dirir dhabu ka imaaday halkaas ku dhashay waaba soo seexis bay leeyihiin Ciise فربا كوجودن إسماعيل عمر قال عيسى سعد dadka caadiga ah ma qabaan nacaybka daaro kuwa galbeedka city ciidamada maalin walba ku dhimanayo ee dhulkooda u difaacaya waa wiilal liyu booliis kuwan kale ee hadda Jabuuti dawladda ah dadkii xoreeyay ee u dagaalamay ee xornimadooda ka dambeeyay ee Faransiis inay xornimadooda qaataan ka dambeeyay waxay hayeen taliska Maxamed Siyaad Barru ciidanka Maxamed Siyaad Barru halkaas u diray Jabuuti marka Ismaaciil isagu waa soo saacis waa iyaga baqiraya waa in la xisaabtamo waa in la xisaabtamo Salaam Bank isaga leh hadii ma taqaanay si dhab loo xisaabtamana Puntland aakhirka Salaam Bank hadaysan cadayn cidii fududaysay in lacagaha intaas leeg ay dhex maraan ma taqaanay Daacish ay dhex marsato bangiga sidoo kalena ma taqaanay Daacish ay waraaqahaasi jeebkooda maanta laga soo garo oo halkaas ay ku dhagsanaado loogada Salaam Bank ay san cadaynin waa laga mamnuucaya Puntland bangiyaynu leenahay caalami ah waa in laga mamnuuca bangigaas waayo deer nimankan argagixisada ah way taageersan yihiin buugan waa buugnood qof si kasta gacanta uu ku gali karaa ma taqaanay Daacish waa buuga Salaam Bank bay isticmaasho qof baa inta soo gato geyn kara waa caadi anagu buugnood kama haysano waxa aanu haysano maanta ma ahan buugnoodka jeebka qoraalka ku qoran yahay ee Daacish jawaabkeeda laga soo saaray ma ahan anagu maanta waxaanu haysano waxa weeye lacagaha caalamiga ah ee bangiyadu ka mid yahay Salaam Bank oo ninka Ismaaciil Cumar Geelana cadaawadaas iyo nacaybkaas fog reer Puntland iyo daarood Ismaaciil ba u qabo ma taqaanay lacagaha dhex maraya waa in isla xisaabtan dhab ah uu imaado buugu si kasto ku gali kara Daacish buuga ma haysan anaga waraaqahan meesha ku qoran ma haysano loogadan Salaam Bank anaga ma haysano waa lacagaha dhex marayo lacagaha baada ah ee Daacish qaataan akoonada ay dhex maraan waxa kamid ah akoonka Salaam Bank bangiga Salaam Bank baa kamid ah waxa anagu aanu ka hadlayna waa intaas weey waa in dawladda Puntland ay la xisaabtanto qodobna waa qodobkaas halkaas aan dhigaya
ووحي ورقدة كقرنا يعني دين شقي بنك السلام بنك عدة له أو عداوة ينعيب كفك أستيسن وأنا دين شرحي ولا بدأ قضب ولا بدأ قضب وبرنامج كمان الدهنا أو دافقنا ولا بدأ سوي إنه أجاده مدوا عدة فضوضين وسين من كاس داعش أي صامران إيجا ضل حيسيال إسكدجاية أي صامران هرجيسي برعو يعري جابو مدنوا بنجيل العقد وأي أمر داعش تستميه كبرولين إن شرطة تميه كبرولين بورها سكجرته وي غضب كسدحانا محي نمان كان بورته وجرا محي فائدة وجرا أي كوكبا نمان كان بورته كجرو هرت ملك سو دغان كران او waa target hal tuulo oo Puntland ma haystaan hatta deegaanada buuraleyda ah oo ay ku jiraan hal tuulo kama haystaan halkaas ay ku dhuumanayaan buuraha markii maxay ku jira buudaha waxa ku jira macdan iyo dahab buuraha macdan iyo dahab ba ku jira faa'iidada ay ku qabaan markii buuraha waxa weeye khuburo caalami ah oo macdan baaris ah oo ma taqaanaa iisheeg dahab ka baarta baabuuraha ku jirto dahabkaasay gurtaan macdantaasay gurtaan waxay ka gataan suuqyo madow doonyo inta lagu raro oo badda la mariyo baa suuqyo madow oo Yemen ku yaala laga gataa dahabkaasay macdantaas meeshana waxa ku jirto khuburo caalami ah oo Pakistan leh oo macdan qodis ah baa ku jirto oo iyaga la shaqeeya marka muxuu ku farayaa tuulo xun inuu qabsado ma farayaba muxuu tuulo xun buuraha ma taqaanaa gobolka bariyo ku falaya intuu noloshiisa ka dhiman halkaas ma taqaanaa ku noolaanaya intuu noloshiisa ka dhiman halkaas ku noolaanaya dahabkiisa soo gurta doon baa lagu raraa waxa laga gadaa Yemen suuqyo madow oo ku yaalo maalin dhexdaas Dubai waxa laga qabtay dahab waxa la yiri macdantan Soomaaliya laga helaa gobolka bari bas laga helaa nimankii waa laga qabtay Daesh bay noqdeen marka muxuu ku falaya inuu balli dhidhin iyo dhar jaalay ma rababa halkiisaas ku jira ganacsatada boosaasa joogan waa toojar gareynaya oo lacag baad uu ka qaadaya malaayiin qof kasta lacagta soo gashan waa ogyahay buurahan waa ku jira dahabkii macdantii waa guranaya marka maxaa ka maqan ninka buurtiisu isaga jiraya marka waa in marka godadka iyo boholaha ay ku jiraan loogu godo oo cadawgan shisheeye ay ku soo duulay dalkeena ma taqaanay laga saaro عدة فضوضين